wasaaradda difaaca dalkaasi Mareykanka ayaa warbixin ku qirtay 132 qof oo dad rayid ah ay ku dileen dalalka Soomaaliya ay ku jirto howlgalka militari ee ku sameynaya tan iyo 2019 sida warbixinta lagu faahfaahiyay wadamadaasi Ciraaq, Afghanistan, Soomaaliya, Suuriya waxa lagu dhaawacay 190 qof oo rayid ah. qoraalkan ay ku jirto warbixinta sanadlaha ayaa soo saartay wasaaradda difaaca dalkaasi Mareykanka ee lagu faahfaahiyay wax waliba oo ka soo baxay howlgalkan militari ee Mareykanku ka sameeyay Yemen iyo Liibiya sanadku markii 2019 laguma sheegin wax khasaare ah kadib qiimeynta ay sameysay waaxda difaaca Mareykanka ayaa lagu sheegay bayaan ka soo baxay waxa la sii raaciyay wax waliba oo ku saabsan howlgalkan militari ee Mareykanku ka sameeyay uu sameeyay 2019 waxa la filayaa inuu waafaqsanaa sharciga dalalka laga sameeyay howlgalkani. wadanka qaaradaasi Aasiya ku yaala Afghanistan ayaa lagu soo duwan gelinaya waxyeeladii ugu badneed ee Mareykanku geysto dadka rayidka ah 108 qof ayuu ku dilay halka uu 75 kalena ku dhaawacay sida lagu xaqiijiyay bayaanka soo baxay. Soomaaliya oo kamid ah wadamada warbixintani taabanaysa waxa lagu dilay 2 qof halka sidoo kalena 3 qof oo kalena lagu dhaawacay sida ku cad bayaankan warbixinta wasaaraddaasi ay soo saartay. waxa sidoo kale lagu xusay in 22 qof oo rayid ah lagu dilay 12 kalena lagu dhaawacay wadamadaasi Ciraaq iyo Suuriya. dowladdaasi federaalka Soomaaliya ayaan wali ka hadlin dilkan dadka shacabka loo geysanayo guud ahaan Soomaaliya balse hay'adaha xuquuqul aadamaha u dooday qaaradaasi Afrika ayaa Mareykanku ku eedeynayay inay bixiyaan magdhow. sidoo kalena Ilhaan Cumar oo kamid ah xildhibaanada Mareykanka oo ay la dhinac yihiin xildhibaano kale ayaa ku doodaya inuu Mareykanku bixiyo magdhow. waa Xamse Dabare, Telefishinka Star.